السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأبو حسن بافر كان لقد داولين سوى جنال بافيري مدة لقد جوجا صدق سنة أيام وحن لقت عقد صار دقني ناشونال تياتر هذا وحن رأينا أن تشيء قبيس كردون إلى السعودية إن شاء الله. alright maanta oo ah maalin maalmaha looga baxsan ayaa waxaan ku suganahay national theatre-kii muddo 30 sano kadib aad iyo aad waxaan u leenahay ama u faraxsanahay in ay tahay maalin aan caadi ahayn dadka shucuurta ka muuqata ama fanaaniinta halkan isugu yimid ay aad iyo aad ay u sareyso wax macaan ila daawada theatre-ka aad loo dhisay qaabka loo shaqeyn doono insha Allah وأوجه هدي معناها كوتا أنا يا مريض بابا maxaabiis Soomaaliyeed ciidan ahaa jiray laakiin maanta ciidankaas lugta ka mid ah sida hadda aad indhihiina ku arkaysayna maanta dalkuna waa u baahan yahay shalay haday dad qariban ahaayeen maanta nooca ay yihiin indhihiina ku arkaysaan juhdi badan lagu bixiyay maskax badan gashay dadaal badan galay maanta indhaha dalka iyo fayooraha dalka inay noqdaan baan rajaynaynaa idinkaana qiimeey doona intaa kadib waxaan rabaa erayada ku habboon inaan si dhex galo barnaamijka ma rabo taliyahaygii yimid maqnaashiisaan uga faa'iideysanayay in uu taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan aadan halkan afar kelmo ku habboon yiraahdo ayaan ku soo dhaweynayaa taliya mahad ku soo dhawow marka taliya waxaan u gudbaa gadaal naga soo gaartay hawsha waa wataa aad baad u mahadsan tahay waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo marka barnaamijka odaga soo aasaasay haddana guddiga ka mid ah macalinka qaranka dhihi karaa سريبود بشير محمد جامع في هالكان ووضعه الرياضة كوها بون إيوه وحي دردارا إيوه فرينة وهالكان كوكوكينا إيوه تلوى ما سلطة تشودرون بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قدقة قبنقابة لحدن قورة تضبات كحرية مدن وزير ماري سلام كاسنا وزير ك ورفافينتا دالحيس كيا دقن سوكله دكتور صادق ورفا وزير كوزارة الشقة يرمى برشدة وجود وحبين كا وحن كلو سلام يا تليها عيدا كاسلوب الصوماليين سرية بوتو مهد عبد الرحمن سلام كاسنا لما ريها وكالة هرمونات الإسماع الصومالية waxaan kaloo salaamayaa gudoomiyaha guddiga wacyigelinta qaranka mudane Yuusuf Diiriye waxaan aad u salaamayaa xildhibaanada taliyaha ciidanka hoggaanada kooxda unkud iyo kooxda dhalinyarada orkestrada qaranka iyo maareeyaha guud ee wakaalada murtida iyo hanuuninta dadweynaha oo maanta hoygiisa marti ugu nahay iyo dhammaan la taliyaasha iyo madaxda kale ee guddiga qabanqaabada madaxda guddiga sare iyo guddiga farsamadaba haddaan intaas ka gudbo mudane gudoomiye halka
halkaan hortaada waxaa jooga dhalinyaradaas gabdhay wiilal saasoo mashruucan ku bilowday dhalinyarada qaar ka mid ah cafis baa u yimid oo waa la sii daayay caawa maantayto waxaan uga farxinayaa inta kalena processkooda inuu socdo haddii ilaahay idmo 60 guurada kadibna aan rajaynayno inay waalidkood iyo dadkii jeclaayeen la damaashaadi doonaan shaqana la siin doono sidii kuwii ka horeeyey taasna waa fariin oo madaxweynuhu jumhuuriyaddu soo faray marka intaas daan iraahdo waxaan maantay mashruucan wuxuu ahaa kaliya tijaabo inaynu eegno ma mudan yihiin dhalinyaradan maalmaha xurriyadda teatarkan oo abwaanada Soomaaliya ugu waaweyn mid ka mid ah abwaan Shumo uu joogo ma mudan yihiin habeenkaas inay halkaan soo fariistaan oo ummadooda tusaan meeshay ka yimaadeen iyo maanta waxay yihiin waxaan mareenaa shacabkii naas wuxuu yahay waa u codaysay kulli ma sha Allah marka waxay noqon doonaan orkestrada ugu horeysa Soomaaliyeed oo dabaaldega maalmaha xuska qaranka ka qayb gasha soo bandhigta hadda heesii wadaniga ah oo shucuurta aad u jeedeen marka mawduucu maanta waxaa tijaabo iyo xubnaha guddiga sare ee qabanqaabada 60 guurada toddobaadka xorriyadda iyo midnimada iyo guddiga farsamadu oo intooda badan meesha hadda ku sugan inay idin arkaan idin qiimeeyaan wixii aad qabateen imtixaanka waxa ku jiray waxa ugu horeeyay Generaal Mahad Cabdiraxmaan oo ah odaygii iyo taliyihii ciidankan taliyiheenkiisa hoggaankiisa tababarada iyo kooxda Onkod oo dhammaan macallimiin iyo garab iyo gaashan u ahayd dhalinyarada saaxiibadooda marka guddiga oo ugu gacan dheeraa gudoomiyaha guddigu iyo abwaan Shube oo farsamayaqaanka ugu weynaa kulli korbay u qeyneen waa ansixinay bay yiraahdeen marka waa ansixinay misran gudoomiyaha afkiisaan ka rabaa gudoomiye soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan rabaa runtii farxadna ah inaan halka ka salaamo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed saraakiisha iyo hoggaamada ciidanka asluubta Soomaaliyeed kooxda Onkod dhalinyaradan qiimaha badan ee maanta halkaan runtii nagu tustay xusuus orkestraha qaranka sida la sheegay wasiir Saadiq iyo xubnaha guddiga xuska 60 guurada xorriyadda iyo midnimada dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaa sidaa uu Bashiir sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in halkan tiyaatarka qaranka waan weli furnayn laakiin aan quruxda uu leeyahay iyo baahida aan u qabno awgiis marmarka qaarkood waxyaalaha tijaabada ku samayno inaan maanta ku daawano kooxdan orkestraha qaranka oo sidaa la sheegay wax fiican oo aad u fiican ay noo codaynayna tusay isla markaana aad dad markii hore xabsiga dhexe ku tegay qaab cadaaladeed laakiin maanta ah shaqaale dawladeed iyo xubin weyn oo kamida qaybta fanka iyo muusikada Soomaaliya wax weyn بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan rabaa runtii farxadna ah inaan halka ka salaamo taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed saraakiisha iyo hoggaamada ciidanka asluubta Soomaaliyeed kooxda Onkod dhalinyaradan qiimaha badan ee maanta halkaan runtii nagu tustay xusuus orkestraha qaranka sida la sheegay wasiir Saadiq iyo xubnaha guddiga xuska 60 guurada
xorriyadda iyo midnimada dhammaan marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii waxaa sidaa uu Bashiir sheegay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan tiyaatarka qaranka aan weli furnayn laakiin aan quruxda uu leeyahay iyo baahida aan u qabno awgiis marmarka qaarkood waxyaalaha tijaabada ku samayno inaan maanta ku daawano kooxdan orkestraha qaranka oo sidaa la sheegay wax fiican oo aad u fiican ay noo codaynayna tusay isla markaana dad markii hore xabsiga dhexe ku tegay qaab cadaaladeed laakiin maanta shaqaale dawladeed iyo xubin weyn oo kamid ah qaybta fanka iyo muusikada Soomaaliya wax weyn waxaan amaanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdilaahi oo runtii sidaa uu sheegay sareeyo guud Bashiir fikirka lahaa fanka jecel warbaahinta jecel muusiga jecel ummadda in la wacyi geliyo oo wax wanaagsan la tuso moralkooda la soo nooleeyo jecel fikirka inuu lahaa intii dhaqan gelisay sareeyo guud Bashiir iyo taliyaha ciidanka iyo saraakiishiisa taliya ku xigeenka kulli intii xaqiijisay fikirkii madaxweynaha ka dhigay wax shaqaynayo sidaa u qurux badanna aad iyo aad baan u amaanaynaa aad u mahadsantii waxaan mar labaad amaanaya ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo taariikhiyan weligiis ahaan jiray ciidan shaqooyin badan qabta oo sidaa maanta ma sameeyay dad bulshada ama xagga dambiyo noocay doonaan ba ha noqdeen galay qaabka noloshu meelaha qaarkood ku adkaatay si uu ku yimid xabsiga dhexe ama xabsiyada dalka weligood ka dhigi jiray dad hogaamiyayaal dad qaybaha kala duwan ee bulshada waa meel jaamacad weeye xabsigu waa jaamacad meel lagu barto qofku ka faa'iido qof kasta oo gala uu kala yimaado dhaqankii hore ka duwan aqoontii hore ka duwan dad badan baa u qaba inay tahay meel ciqaabeed maaha meel ciqaabeed waa meel waxbarasho weeye sidaa haddaba arkaysaan oo dhallinyaradan quruxda badan oo si uun ku tegay halkaas maanta ay isu bedeleen dad kaalin ku leh oo kaalin kaga jira horumarka dalka iyo wacyigelinta bulshada iyo quruxda dalka meel kaga jira waxaan ugu darayaa bushaarada uu sheegay Bashiir in ilaahay idankiis marka la gaaro toddobaadka xorriyadda maalin kamida madaxweynaha jamhuuriyadda uu kulli wada cafin doono oo ay noqon doonaan dad xor oo waliba shaqaalaha oo ciidanka asluubta Soomaaliya ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliya kaliya maaha waxaan u maleeyaa la isku dili doona wala qaybsan doona anagu wasaaradda warfaafinta qayb baan uga baahanaa barrow iyo shubayna waa loobi bay ku jiraan horseedna waa taas marka xafiiska mahad baa la isugu tagi doonaa taliyaha ciidanka ayaa la isugu tagi doonaa